السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان soo dhawaada marka hore salaanta islaamka aan idinku salaamayaa. Waa macalin cabdifataax maal. Dabcan halkan aynu ka hadlaynay waa YouTube channelkeenii dabcan oo Maleficus Academy. Dabcan waxaynu halkan ku duubi doonaa insha Allah weekly overview-geenii oo aynu dabcan sida aad ogtiin xalayto aynu waxa la yidhaahdo inay galnay oo aynu suulkii xalayto hore si live ay iskula eegnay aniga iyo intii qof ee waxa la yidhahdo markaan live ka ahayd sidaan nii ballan qaadnay inaan iyada oo recording ah soo gelinay YouTube-ka ayaan intii ballan qaadnay waana iyadii tan aynu imika u fadhinay. Okay, markaan ku socdo dabcan wuxuu iska noqon doonaa inay waxa la yidhaahdo dulmar guud iyo waxa la yidhaahdo analyskii oo beer kasta la socdo. balse haddii aad u baahan tahay oo fiidiyogan aad gadaal ka daawanaysid oo aad u baahan tahay in aad waxa la yidhaahdo si detail ah ula socotid analysyadan aynu bixino waa in markaa aad kasoo qayb gashaa dabcan waxa la yidhaahdo live-ka oo habeen kasta 8 habeenimo habeen kastoo isniinta soo gelayso 8 habeenimo waxa la yidhaahdo baxa geeska Afrika marka ay tahay. Okay, inta haddii aan kaga soo gudbo waxa la yidhaahdo ku socda weekly overview-geena iyo beeriskan dabcan inay sidii xalay toolada aynu ku bilownaa aynu ku bilaabi doonaa. sidaad u jeedaan waa USD JPY waa doolarka iyo yenka waxa la yidhaahdo inay chartigoogii dabcan waxaanu ka filanaa same waxa la yidhaahdo inay analyskeena hor yaalla dabcan waxaanu ka filanaa in waxoogaa yar halkaa uu marayo weli haddaa downside yar aynu kusii aragno intaa kadib waxa la yidhaahdo uu suuqu soo kala wareego ilaa iyo new high-gaa sare uu jabsanayo uu saa new high ku samaysanayo dabcan markaa waa structure ka mid ah structureska waxa la yidhaahdo aynu baran doono sidoo kale aynu marar badan hore usoo barannay oo xalay toole ay ka mid ahayd iyadoo si detail aynu u sharaxno. USD JPY saasaynu ka rajaynaynaa. Possibility kale ayaa waxa la yidhaahdo halka ka muuqata waxoogaa in waxa la yidhaahdo uusan downside-kan aynaan arkin oo waxa la yidhaahdo waxa possible ah oo halkaa laftarkeeda ka kala wareego balse waxa la yidhaahdo marnaba in la sii salgareeyo inay kuma talinano oo waa directionka guud waa bias aad arkaysaa. Okay, taasi waa USD JPY. Euro yen laftarkeeda waxa la yidhaahdo waa waxaanu ka rajaynaynaa in ay waxa la yidhahdo waxoogaa correction yar sii gasho oo waxa la yidhahdo ama downside yar ay sii gasho dabcan saad arkaysaa waxay ku jirtaa waxoogaa consolidation yar bay ku jirtaa from laga soo bilaabo 13 August. waxaan rajaynaynaa dabcan in waxa la yidhaahdo ay dhammaysato waxaynu ugu yeedho 7 dhaqaaq oo 3dii hore waad haysataan waxa la yidhahdaa 3 kale ay ku darsanto oo short term time frame-ka laga arkayo intaa kadib ay 3 kale ku darsato markaa kadib ay waxa la yidhaahdo new high-staa ku samaysato. dabcan halka ay joogto waxa la yidhahdo scenario-da ka bannaan waa macquul in aysan samaysan waxoogaa downside-kan yar oo halka ay joogtay laftarkeeda up ay uga dhaqaaqdo oo waxa la yidhahdo sidaa ay new high ku samaysato. Okay, kuma talinayno in waxa la yidhahdo la salgareeyo. Okay, JPY dabcan waa la mid iyada laftarkeedu oo waxa la yidhaahdo inay dabcan correlation-ka u sababa in ay suuqu waxa la yidhaahdaa hal dhinac u wada dhaqaaqo. haddii aadan fahmaynin waxa aan ka wada correlation iyo waxyaalahaas oo dhan dabcan waad nagu xidhnaan kartaa channelkeena waad kusoo biiri kartaa waxyaalahaas oo dhan waanu si daily ayaan iskula eegnaa aniga iyo waxa la yidhaahdo inay guud ahaan dadka nagu xidhan. Okay, sida aynu ka rajaynayno waxoogaa yar in downside yar aynu aragno ama waxa la yidhahdo salaries gutaad u taqaano ama bearish aynu waxoogaa sii aragno intaa kadib waxa la yidhaahdo jihada guud waa buy oo suuqu sidaa uu ku dhaqaaqo buy ku aado. AUD JPY waa same thing iyada laftarkeedu waxa la yidhahdo waxoogaa yar in ay downside yar aado intaa kadib ay new high-staa ku samaysato waa possible in ay waxa la yidhaahdo waxoogaa rating ay gasho ama consolidation gurbaadka aad u taqaano balse jihada guud waa maxay waa up waa
waa bullish. Okay, sidoo kale si aad ugu xaqiijiso in waxa la yidhaahdo waxaad ku xaqiijin kartaa haddii train lineka lasoo jibiyo oo laga soo hoos maro dabcan waxay noqonaysaa marka in waxa la yidhaahdo ay waxoogaa isbedeli karaan oo possible sababtoo ah suuqu ma aha inay hal direction oo keliya markasta oo aad u forecasting garaysa inuu eego khasabna mise waa scenaariyooyin laysku geeyey waa afkaar laysku geeyey probability weeyaan marka si aad cyclekan waxa la yidhaahdo inuu weli hadda life yahay ama uu nool yahay si aad waxa la yidhaahdo aad ula socon karto waana train lineka isticmaali kartaa dabcan train lineka sababta inuu isticmaalno waad garan karaysaa information badan iyo waxyaalahaas oo dhan haddii aad u baahanto waad kusoo biiri kartaa okay aynu ka gudubno card jpy waa same thing waxoogaa yar down saar yar baynu arki doonaa ilaa waxa la yidhaahdo ثلاثة إلى أربعة أنت كدب وتيك الوريكة وواحد اللي راح ضد طبعا واحد سميسان يسوى 3 كلا سميسان يسا مثلا 3 بي أب كسرك وآلسا إلا يوم أي تارجت كسرك جارس أوكي تاسو حيث كار جي بي واي يتشك جي بي واي وسيم ثينك إذا لفتر كذا محقار لو سريرين فارقه أنت كدب أي واحد اللي راح ضد أب آتو لأنه كرتشيننا waxba salkan yar yaanu ku dagin waxba salkan yar haysoran ka sii faa'iidayso sababtoo ah in uu dhowaan dhammaado ayaa macquula oo haddii aad cabirato waxa possible ah halka uu joogo laftirkeeda in waxa la yidhaahdo uu ka kala wareego oo uu suuqu sidaa new high ku samaysto okay marka fursadda guud iyo waxa la yidhaahdo up trainku waa bullish waa up marka buy ka raadi fursad baya ka raadi okay haddii aynu halkaa kaga gudubno yen beariska aynu u galno dollar beariska euro usd aynu ugu horreysiino sidaad arkaysaan euro usd okay euro usd waxaynu ka suganaa in waxa la yidhaahdo ay weli hadda bullish sii ahaato waa possible in waxoogaa ay soo yar daadato balse waxa la yidhaahdo waa tii inay bullishka sii ahaata somewhere here in waxa la yidhaahdo ay ka dhacaan bullish oo lugtii ugu dambeysay dabcan noqonaya haddii aad lowga hoose kasoo tiriso waxa la yidhaahdo waa impulsive marka way for inay somewhere here ku dhammaatay ayaa waxa la yidhaha markaynu soo tirino sidaynu xalay ku tirinay lifekeenii aynu ku sharaxnay inoogu inay caddaatay somewhere here inuu ku dhammaaday way for kadib lugta lagu jiray ay way 5 tahay kadib way 5 laftirkeega way shan si kala baxdo marka isku soo duubduub waa up trending okay taas euro usd weeyaan ABB USD waa boonkii iyo waxa la yidhaahdo dollarkii sidoo kale cable bay dadka qaar yaqaanaan walba taas u taqaano sidaynu chartiga kusoo dirnay waxa la yidhaahdo dabcan chartis ayaynu dabcan sidoo kale bixinaa sidaad la wada socotaan sida aynu ku soo dirnay xalayto forecastingkeennii waxaanu ka suganaa in uu dhammaystiro waxaa la yidhaahdo shantaa dhaqaaq kadib intaa kadib soo salgareeyo oo correctionkii cyclekani uu waxa la yidhaahdo uu soo correct gareeyo uu 3 dhaqaaq soo correct gareeyo kadib intaa kadib uu buy sii aado balse iminka fursadda ku jirtay halka kan wax kale maahan waxa waaye in aad sugi karto sorry in aad waxa la yidhaahdo inay ka raadin karto baan ka wadaa bullish inaad ka raadin karto long position okay AUD USD waa same thing waxaanu ka suganaa waxoogaa more upside baynu ka suganaa intaa kadib lasoo salgareeyo okay ida laftirkeedu from the low markaad kasoo tiriso waxa la yidhaahdo waa impulsive siduu usoo dhaqaaqay waad arki karaysaa waa impulsive waxa uu markaa waxba ha isku day inaad salgarayso weli hadda one more push baa u dhiman ama one more in up loo si qaado intaa kadib waxa la yidhaahdo lasoo salgareeyo okay NCD USD dabcan iminka ka hor wiigii hore dhexdiisii ayaynu waxa la yidhaahdo kusoo dirnay channelkeena
sida intiina la socotay ay og tahay. Okay, meelaha markii marisay soo dirnay waxoogaa weli hadda areadan ayaa lagu celcelinayaa suuqa boqolkiiba boqolkan fib extensionka markaad ku cabirato like this areada boqolkiiba boqol buu joogaa. waxaanu ka sugaynaa in waxa la yidhaahdo ugu yaraan 3 dhaqaaq ama 3 waxa la yidhaahdo move ay halkan kasoo boodaan haddii ay si new highsa ku samaysan. sidoo kale new highsa ku samaysto macquul. sidoo kale wax macquula in ay 3 wave kusoo boodo intaa kadib ay waxa la yidhaahdo 3 kale kusii darsato intaa kadib ay sida new high ku samaysan. Okay, taasina waxa weeyaan possible possibility. sidoo kale waxa possibility halka ay joogto inay new highs uga samaysato waxa la yidhaahdo suuqu sida up ugu siiso. kuma talinayna in la salgareeyo sababtoo ah waxa la yidhaahdo sidaynu ka muuqata waa bullish suuqu. haddii aynu dib u noqono okay haddii aan soo dhaweeyo waxaad arki kartaa in suuqu waxa la yidhaahdo ku socdo up xoogan markaa fursad baa ka raadi keliya. USD CAD okay USD CAD waxoogaa more weakness baa lagu sii arki doonaa baan dabcan ka wadaa ilaa inta ay ka dhammaystirmayaan 5 dhaqaaq. okay 1 2 3 4 5 somewhere here inay ku dhamaadaan intaa kadib lasoo korragti kare. okay marka waxoogaa more downside baynu kusii arki doonaa waxa la yidhaahdo USD CAD inaad baygaraysa isku dayin. sidoo kale waxa macquul ah meelahan in waxa la yidhaahdo ay wave ku dhamaatay. sidoo kale waa possible waxa la yidhahdo halka aynu joogno laftarkeeda aynu ka noqono balse ugu yaraan marka aynu soo tirino weli haddayna wax kusii dhiman yihiin baanu arkanaa waxoogaa salyar baynu kusii arki doonaa ilaa weyga bilowgiisa intaa kadib ay soo kala laabato. okay processka haddii aan u galo iyaga laftarkooda dabcan wuxuu ka mid ahaa beeriskan wiigii hore kusoo dirnay channelkeena oo dabcan si aynu forecasti karaynin raacday. haddii aad dib ugu noqoto xogta taala channelkeena waad arki kartaa suuqu meelahaasoo kale marayay dabcan in waxoogaa new high intu samaysto kadib uu soo korragti gareeyo ayaan waxa la yidhaahdo idinku soo diray oo forecastingkeenu uu ahaa. weli hadda waxba iskamay bedelin fikraddii ahayd waxa la yidhahdo inuu suuqu one more push intaa kadib waxa la yidhaahdo soo salgareeyo lasoo salgareeyo si loo dhammaystiro waxa la yidhaahdo 7 dhaqaaq halkan 1 2 3 1 2 3 1 2 inta oo dhan waa 2 3 waa 7 dhaqaaq. 7 dhaqaaq structurekaas muxuu noqonayaa W X Y. okay intiina ila socotay in aad ka wada dhegeysantiin baan filayaa. haddii aanad fahmayn waxaanu ka hadlano balse aad jeclaan lahayd inaad barato dabcan waad nagu soo biiri kartaa channelkeena dabcan videoga xaggiisa dambeenu ka raacan doonaa waynu soo dhaweynaynaa. aynu ku socon Euro AUD Euro AUD Euro AUD Euro AUD waxaynu ka suganaa in ay waxa la yidhaahdo waxoogaa more upside aynu aragno intaa kadib waxa la yidhaahdo in suuqu soo kala wareego. okay waxay ku base garaysan tahay taxliilinteenani sidaad arkaysaan 3 waxa la yidhaahdo 3 marka iminka waxa lagu guda jiraa dhaqaaqii u dambeeyey ee waxa la yidhaahdo 7 dhaqaaqa 7 laftirkiisa ayaa wuxuu sii kala baxayaa sidaad barateen waxa la yidhaahdo isaga laftirkiisa 3 sii noqonaya waa lugtii koobaad tani waa tii labaad oo noqonaysa correctionka lugtan intaa kadib waxaynu doonaynaa in sida new high u samaysto. okay taasna Euro AUD bay ahayd. Euro NCD waxaynu ka rajaynaynaa weli hadda in iyaduna waxoogaa more upside la arko intaa kadib lasoo korragti gareeyo si ay u dhammaystirato waxa la yidhahdo 5 dhaqaaq ee lowga hoose ka yimi
okay marka waxoogaa more upside baynu arki doonaa ama waxa la yidhaahdo weli hadda in kor loo sii wado eurocad waxa la yidhaahdo waxay correct garaynaysaa cycle-kii lowgan hoose kasoo bilowday lowgan hoose labadii dabcan June ay correct garaynaysaa ugu yaraan waa inay 3 dhaqaaq ku correct garaysaa maadaama aynu 3 dhaqaaq haysano oo haygan sare ka yimi oo noqonayo 1 2 3 waa possible in sida new high lagu samaysto oo suuqu haygii hore uu jibiyo sidoo kale waxa possible ah in waxa la yiraahdo suuqu sidaynu ku forecast garaynay imika intuu 3 halkan ku daro kadibna 3 kale halkan ku sii daro marka kadib new high ku samaysto marka labada possibility waxa la yiraahdaa inay waa possible balse guud ahaan waa buy marka waxoogaa fursadda tan sug intay waxa la yiraahdo sida uu dhacayo marka kadib ayuunbaad qaadan kartaa GBP/AUD waxaan ku suganaa waxoogaa yar in downside yar aynu ku aragno ama waxa la yiraahdaa inay waxoogaa suuq sii yar daato intaa kadib waxa la yiraahdo new high ku samaysto oo highgan hore la jibiyo waxay ku base garaysan tahay dabcan selka yar aynu arki doonno in kaliya waxaan soo cabirnay 3 dhaqaaq ee highgan sare ka yimi waa possible in aanad arkin waxa la yiraahdo exactly halka aynu dhignay inaanu ka noqon oo halka uu joogo laftarkeedu suuq ka kala wareegi karo balse intriga ugu saxsan ee haddii aad doonayso inaad fursaddan ka faa'iidaysato wuxuu noqonayaa in waxa la yiraahdo aad ka qaadato levelka oo noqonayo price ahaan haddii aan kuu sheego noqonaya waxa la yiraahdo 1.807 okay taasina waa GBP/AUD GBP/NCD waxaanu ka arki doonaa waxoogaa more upside balse waa macquul inay correct garayso balse jaadi guud waxa weeyaan waa up okay haddii aynu intaa kaga gudubno forex beariska aynu u galno waxoogaa waxa la yiraahdo commodity beariska oo dahabka ugu horeeyo dahabka sidaad arkaysaan waxa la yiraahdaa wuxuu correct garaynayaa cycle somewhere here lowgan hoose kasoo bilowday okay kan aynu dhahno cycle kan buu correct garaynayaa marka sidaad arkaysaan wuxuu ku correct garaynayaa sidaynu forecasting garaynay waxa la yiraahdo qaabka zigzag-ga correctionka zigzag-ga ayuu waxa la yiraahdo ku correct garayn doonaa oo sidaad arkaysaan waa 5 lugtan hore inuu 3 iyada laftarkeega kusii correct gareeyo oo 5 aad hesho haddana 3 aad hesho haddana 5 kale aad hesho sidoo kale waxa possible ah in suuqu halkaa uu joogo laftarkeeda waxa la yiraahdo new high sidaa ku aado balse adigu marnaba ha isku dayin inaad sii salgarayso in aad sii salgarayso ha isku dayin oo waxa la yiraahdo inay fursadda guud ee bayda ah raac okay silver iyaduna waa same scenario waxay correct garaynaysaa cycle somewhere here from the low kasoo bilowday marka waxaa la yiraahdaa inay habka aynu usoo diyaarinay ayaynu ka rajaynaynaa in ay waxa la yiraahdo baaska raacdo ugu dambeyntii oil sidaad ka arkaysaan iyada laftarkeedu commoditieska oo dhan dabcan waxay correct garaynayaan cycle-kii dabcan haddii aynu dib u noqonno weli hadda waxay ku guda jiraan baan ka wadaa cycle-kii 3 Abril soo bilow kan wuxuu noqonayaa dabcan 20 Abril balse commodity beariska kale oo ay ka mid tahay waxa la yiraahdaa dahabka oo kale waxaan jeclahay inuu isagu March soo kasoo bilowday cycle-kani balse dhib ma lahan dabcan waxay marayaan same waxa la yiraahdo oscillations bay marayaan ama moveska ay sameynayaan waa same marka waxaanu ka rajaynayaa waxoogaa inay bearish yar noqoto intaa kadib waxa la yiraahdo la support gareeyo dabcan
sidaynu ku keennay waxa weeyaan in somewhere here ay ku dhammaan doono boqolkiiba boqol extensionkeena. Okay, more downside ilaa boqolkiiba boqol. intaa kadib waxa la yidhaahdo suuqu uu ka soo boodo ugu yaraan halkan waa inuu ka soo boodaa. intuu saasoo kale uga soo boodo ayuu dabcan wuxuu samaysan karaa waa possible, haddana lug kaluu kusii dari karaa. sidaa maxay ku noqonaysaa? waxay ku noqonaysaa dabcan 7 dhaqaaq, 3 hore 3 dambe oo kasoo boodi doono iyo 3 kale oo uu kusii dari doono. markaa kadib uu sida new high ku samaysto. marka adigu waqtigaa kuu kala sheegi kara, waqtiga ayaa kuu kala sheegi kara. oo haddii uu new high sidaa ku samaysto oo uu high-gan hore jebiyo, marka waxaad garanaysaa inayna 7 dhaqaaq soo socon ee keliya uu correction-kan 3 dhaqaaq ahaa. marka labada possibility oo maskaxda ku hay, balse halkan trade waad ka qaadan kartaa 40 waad ka qaadan kartaa marka uu price ku marayo. dabcan waxaan jeclahay inaan halkaa ku gabagabayno oo waxa la yidhaahda inay forecasting-keenu uu noqdo mid halkaa kusoo gabagabooba. dabcan iyaga oo sharaxaad dheeriya aynu ka bixinayno xalay baynu qaadanay, keliya tani waxa weeyaan inay waxa la yidhaahdo waa dulmaris. si aad qayb uga noqoto waxa la yidhaahda inay qofka YouTube naga daawanaya dabcan ka hadlaya muuqaalkan gadaal ka daawanaya, si aad qayb uga noqoto waxa la yidhaahda ardayda live-ka soo xaadirta oo sida live-kan oo la socoto markaaynu bixinayno weekly overview-ga, sidoo kale casharada soo socda aynu bixin doono. waa inaad groupka kusoo biirtaa, waa free. channelkeena waan siin doonaa linkigiisa insha Allah. waan soo dhaweynaynaa jamca furan kusoo dhawaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.